السلام عليكم صاحبيال كسو دواada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo la garay hadii aad hore inoo la joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow dabcan maanta muuqaalkeena waxaynu ku qaadan doonaa cashir aad iyo aad u muhiim ah dabcan sida title-ka ka soo aragtay maanta waxaan baran doonaa sida muuqaal YouTube kiyaalo re-upload ugu sameeyo re-upload macnaheedu waxay tahay muuqaal shakhsi uu leeyahay oo soo gashay oo ku soo dadaalay waqtina uu soo galiyay inaad adina soo galiso copyright aad ka badbaado maanta solution-kaas ama xalkaas inaan ku siiyo ayaan rabaa sidoo kale adna waxaan ka rabaa inaad janaalka inoo share gareyso waxaan saaranahay wadadii aan ku tagi lahayn kun subscribe inaad nacaawiso noo share gareyso sidoo kale aad laf ahaantada aan noo saarto insha Allah dabcan muuqaalka intaan u guda gelin aan ku kala saar horto waxa uu yahay copyright dabcan copyright-ku waa saddex midka koowaad waa copyright claim dabcan haddii YouTube-ka video kala soo degto si toos ah u soo geliso la shaka waxa helaysaa ama ay ku saarayaan copyright claim micnaheedu wuxuu yahay in markaa videogan xuquuqdiisa ama shakhsiyadiisa qof kale uu leeyahay adina aad soo dhigtay way ku ogeysiinayaan taasna waxay sababi kartaa in videoga viewskiisa oo yara liito kor aan loo qaadin dabcan number 1 inaan nala fahantay ayaa rajeynaa kaas qof walba uu ku dhacaa mid labaad waxay tahay copyright claim oo hadana yacni blocked la dhaho video marka saan soo dhigto qofkii lahaa oo hor u lahaa wuu ka bloggareynaya adiga janaalka wax uma dhibaayo janaalka laga xiraayo laakiin videogaas YouTube-ka way ka saaraysaa hawada ka saaraysaa qofna ma daawanayso qofna ma arkayso meesha iskaga jiro ma fahantay dabcan isna waa asna kalaamku laakiin kaas wuxuu wataa yacni wax la yiraahdo block ay wataa in asla fahanay ayaa rajina laba option aan ku tus option-ka saddexaad waxa waaye strike copyright strike la waana midka ugu halista badan oo saddex copyright strike hadii janaalka u kulantana hawada uu ka baxayo dabcan marka muuqaalkan waxa rabaa inaan kugu tuso qaabka aad iskaga ilaaliso copyright claim-ka YouTube-ka uu ku saarayo shakhsiyan video-ga marka soo dejiso saa u soo dhigto isla markii 1 second 2 second wuxuu leeyahay copyright claim video-gan qofku uu diiwaan gashan yahay adna waa ku danaysanaysaa sidaan video-ga calaamada ka saarayaan oo views-kaaga hoos u dhigayso marka waxa in aad leeyahay ka turjumayso dabcan aniga shalay waxaan soo dhigay laba video soo dhigay oo marka astaan ka soo qaatay oo marka musalsalka haboon qofkii yaqaano kulli ama maqlay haaf kamid ah ama qaar qosay ah dabcan dhalinyaro fara badan baa ila soo hadashay yar xataa commentiga ugu soo qarqaarna WhatsApp-ka ila soo hadleen waxay dhaniyo wax baan kuugu ogeyn niyo wax baa ka baranayni casharada noo soo gudbinaysa xataa meeshaan la aad camal marka waxa dhahay yacni tijaaban sameeyno muuqaalan raba in ay sameeyo kaasoo sida copyright looga saaro ah aanan wax copyright claim-na lama saarin blogna lama saarin strike barkiisa iska badaa caadi aan u isticmaalo waa video marka viewskiisana caadi yahay videoyaasha ugu jira camal ah xuquuqdiisa aan leeyahay oo nan ah dabcan screen-ka aan soo dhigay YouTube community in aan aragtaa rajayna marka copyright claim-ka sida aad uga badbaado video-gan views fiican oo kugu helo ayaan rabaa inaan muuqaalkan kugu tuso insha Allah dabcan muuqaalka waxa aan ku duubeeno waa CapCut dabcan CapCut qof aan aqoon ma jiro oo application oo aad ka helayso Play Store ama App Store waaye hadii computer aad isticmaalaysan waa ka helaysaa website ahaan oo jira waa soo booqan kartaa kulli CapCut inaa ku sii dheeraado mar sharaxaadiisna ku sii dheeraado mar videos TikTok lagu sameeyo wax walba lagu sameeyo kulli waa lagu disgareeyaa ina fahantay ayaa rajayna muhiimadiisa dabcan CapCut marka ay maado dashboard-ka saan u yeelaa qaybtaas ay ku qoran tahay plus ayaa taaban doontaa dabcan halkan plus ay ku qoran tahay marka sida u taabato kadib waxa imaan doontaa halkan kadibna waxa soo dooran doontaa video-ga marka aad rabto in copyright-ka ka saarto dabcan waxa dooranaysaa oo kale ciyaartan oo kale dooranaysaa dabcan ciyaartan marka saa u soo doorato hoosh intay ka bilaabanaysaa sababta ama reason-ka aan u soo geliyay muuqaalkan aan u duubayna waxay tahay hore waxaan kula wadaagay 4 hab oo online lacag loo sameyn karo oo blogging ugu horeeyo sidoo kale YouTube-ka uu ku xigo marka Facebook page oo ku jiro affiliate marketing oo ku jiro dabcan waxa jiro dhalinyaro fara badan oo waqti fara badan haayo oo mashquul aysan ahayn dabcan yacni online inay lacag ka sameeyaan jecel YouTube-na marka xirfad ay ku soo gudbiyaan ama muuqaal camera ay soo hor fadhiistaan ama yacni in shaashada ay wax ka soo duubaan ay ku adag tahay this is the easiest way to make money online in 2023 I'm telling you guys wadada ugu fudud lacag ka sameyn karto online waa YouTube ama shaashad ka soo duub ama camera qaado ama wax la soo geliyo copyright inta ka saartid soo geli millions of people lacag ka sameeyso
muhiimadda fahantaa rajayna insha Allah. dabcan muuqaalkan haddii aad daawato inaad ka faa'iideyso doonto ayaa rajaynaa. sidoo kale adina muuqaalka inuu dhiirigeli oo channelka subscribe inoo saar, sidoo kale muuqaalka inoo la garay. dabcan halka marka taaganta marka hore waxaa taaban doontaa fiidiyoga markaas calaamadiisa qaybtan kore oo fiidiyoga ayaa saa u taaban doontaa. fiidiyoga marka daawato optionadan fara badan oo hoos ka soo baxay ayaa ku soo muuqan doona. dabcan marka hore waxaa ka bilaabaysaa saan ayaa u soconaysaa, codkan ayaa tegaysaa. codka markaad tagto hadda waa 100 waxaa ka dhigi doontaa waa buuxi doontaa oo waxaa ka dhigi doontaa 1000. dabcan heesaa saaran anaa hadda saare. dabcan hadda waa kaas codka waan buuxiye. secondly one aad sameynaysaa waxay tahay taleefanka ayaa waxaa meesha markaas u taabato, inta markaas u taabato kadib shaashadan ayaa saas u soo dhaweynaysaa ama waa yareynaysaa. dabcan hadaartan waxay rasan soo dhaysaa saaska yani yara qaldaysaa ama bedelaysaa ama sidaan ayaa leedahay waxay gadaal u sikinaysaa. dabcan midka adiga ku roon. number 2 in ay fahantaa ayaa rajayna. number 3 waa soo soconaysaa, markaa soo socoto qeybahan hoos ayaa hoos soo jiidaysaa, kadibna halkan ayaa dooran doontaa ay ku qoran tahay adjust aan ku calaamiyay. dabcan halkan markaas u doorato kadibna kalara ayaa ku fur doontaa white waxaas camal ah. inta markaas u doorato waxaa sameyn doontaa waxaan hadda ana hor u saaray mar labaad inaan ku celiya rabaa. kadib halkan aad taaban doontaa oo yani qaybtan ugu horeyso ku tuso, qaybtaas ayaa taaban doontaa. qaybta marka daawato waxaa ka dhigi 10 oo kale ka dhigi doontaa, qaybtaas waa 15 waay. qaybtan sidoo kale ku xigtayna 5 ama 10 ka dhigi kartaa midka aad jooska askal fiidiyoga marka ay garanayso sidoo ku soo baxay adiga laga rabaa. dabcan qaybta saddexaad idin saan ay ka dhigi doontaa 7 ama 10 asaas camal ah waa color waay. inta marka soo saarto kalarada soo saarto ama zoom soo dhahdo ama gadaal u sikiso, sidoo kale tan yani codkana soo dheereyso, haddana waa soconaysaa waxa imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay voice effect meesha ku qoran tahay tigisa. dabcan waa ku calaamiyay waa kana voice effect marka taabato. dabcan markay qaybtan ay ku soo baxdo oo voice effect soo taabato waxaa ku soo bixi doona waxaan marka sida ku soo baxaan waxaa taaban doontaa midkan ay ku qoran tahay deep. dabcan haddii aan ku tuso midkaas ay ku qoran tahay deep ayaa taaban doontaa markaas u taabato codku waa sidaan. dabcan sida markuu yahay hadaaratana codku waa weyn aad dhigi kartaa, heestoo kale waa weyn aad dhigi kartaa. hadaaratana yaris aad dhigi kartaa. tusaale adiga waxa in yani said in u bedelma haddii aadan rabin waxaa gey kartaa oo kale 15 oo kale gey kartaa. 15 markaa geyso heestan hore u waaweyn ana hore u waaweynay adu 15 markaa sida u geysato oo codki aad soo yara weyneyso, fiidiyowgii aad soo yara editing gareyso, shaashadii aad soo zoom gareyso ama gadaal aad u sikiso, codkii 100% aad ka badiso, wixii aad isku dhex qasto stickera meelaha aad ka soo saarto. tusaaladan oo kale subscribe kale ay saaran si loo saarto haddii aad rabtana waa ka naqanaysaa inta, kadibna waxaad taabanaysaa meeshan ay ku qoran tahay tagti markaas u taabato, kadibna waxaa kasii taaban doontaa meeshan ay ku qoran tahay tagti timeline oo ku calaamiyay. dabcan meeshan markaas aan ugu sii doorato social media kale ka dooran doontaa waa kuwan aad subscribe iyo like iyo yani follow iyo waxyaalo fara badan baa halkan ku jira. marka haddii aad qoraalna waa kuwana yani fiidiyoga maanta wuxuu qosay camal waxyaalaas ana geesa ugu soo qorto daarto kaleeto TikTok magacaaga daartana ku qorto inta ka helaysaa. dabcan kabka diyaar inaan ku faahfaahiyo ayaa rajeyna, muhiimadda fiidiyoga inaa fahanto ayaa rajeyna. marka dabcan fiidiyogan haddii aad saytaa u raacdo anuga camal ayna qadanta. dabcan aniga cid ugu haysata malahan oo soo galiyay oo qof wax ugu qabsay iska day kuubareed kalaamkii xataa sharciga ahaa ee marka YouTube-ka qofka haduu saan soo dhigay hore oo ka saarayna waan ka badbaado oo fiidiyoga aan soo dhigay xuquuqdiisa ana leeyay. dabcan fiidiyoga kana u jeeda mid kale ku horeeyna uu jira shorts kana sidoo kale to dhammaan fiidiyosh iyo aan waanan. dabcan halkaan sa ugu jeedo public waa visibility-giisana restriction-giisana waanan. hadda marka adiga aniga ma doonid oo sameyn kartaa oo yani YouTube-na waa ku soo gelin kartaa haddii skill ama xirfad aadan lahayn. waxaan yani faniga ah ee TikTok la soo dhigay, YouTube la soo dhigay, soo qaado isku soo aruuri soo geli YouTube-ka exchange ayaa ku sameyn doontaa, lacagna waa ka sameyn doontaa. marka inagana waa saa u jeed dabcan waxa waaye 834 ayaan dhaafi laanahay. insha Allah waxaan rajeynayaa inaan naga yani halkaan naga dhaqaajiso janaalka nala share gareyso 24 saac wax ka yarna kun subscribe ku gaarno ayaa rajeynayaa insha Allah. waana maasantiin guys, muuqaalka xigana insha Allah muuqaal teel ayaa idin soo wadaa oo aad sugu jirteen. waana maasantiin.